بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله بالهدى ودينه الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام ولا ليال مركا ugu horeysa ilaahay baa mahad iska leh. ilaahigii markale noo suurtageliyey annagoo khayraadka iyo wanaagga isku sheegayno. waxaanu soo haynay mowduuceena ciwaankiisu ahaa kayfa naciishu maca alqur'aani, sideen qur'aanka ula noolaano ayaan ku soo dhex jirnay. si aan qur'aanka ula noolaano, qur'aanka aayadihiisii qaar oo macaanidiisii inaan sida qaabka loo dhuuxayo ayaan ku soo dhex jirnay. aayaddan waxaan fiirinaynaa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi wa nukhawifuhum, waan cabsi gelinaynaa, famaa yasiiduhum, umana siyaadinayso cabsidaasi ilaa tuqyaanan, qooq kabiiran oo weyn ayay u siyaadinaysaa. suuratu lisraa aayadda 6aad. marka waxaa la yidhahdaa alkhawfu acdamu saa'iqin ila allah. markii adiga lagu cabsi geliyo, cabsidaas nooc kastaba ahaato, cabsida waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka ilaahay u kaxeeya, waxyaabaha ugu weyn waaye. wa adallu daliilin, daliilka ugu daliilsan oo ku tusaayana waxaa ka mid ah calaa iqaadi alcabdi, qofka inuu hurdada ka kacayo, ow jara'atuhun wa tuqyaanuhu, jur'atuhu wa tuqyaanuh. macnaha qofka markuu cabsado, cabsida waxay keenaysaa waxyaabaha ilaahay kuu kaxaynaya xaggiisa inaad aaddo keenaya ayay ugu weyn tahay. daliilka ugu weyna waxaan dhahnay qofka wuu wacdisamayaa, jur'adiisi iyo dhiiranaantii uu ku jiray markay cabsi ku timaado waxa waaye wuu wacdisamayaa. qooqi iyo kibirkii hayay markuu cabsado waxa waaye wuu ka degayaa. marka hal tatakhayal anna insaanan samica anna man adraka ramadaan falam yugfar lahu fiihi famaata dakhala annaar fa abcadahu allahu wa asqa xaqahu. marka waxyaabaha adiga marka qofka markii ramadaanka la joogo oo ramadaanka lagu jiro ayaa waxyaabihii rasuulka sallallahu calayhi wasalama ayaa wuxuu asxaabtiisa u sheegay oo 3 jeer intuu mimbarka fuulay oo aamiin 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 yidhi. marka 3dii waxaa ka mid ahayd qof ramadaan intuu soo gaaray oo haddana ramadaanka loogu dembi dhaafi waayey oo sidaas intuu dhinto naar ku galo, naarta allaha ku fogeeyo, oo malaku jibriil uu dhahay, carada ilaahay ha ku dhacdo uu malaku jibriil dhahay, nabigana uu aamiin dhahay. marka ma takhayulaysaa marka adiga? hal tatakhayal insaan oo maqlay ereygaan maqlay waxa waaye cabsi weyn bay ku abuuraysaa. maxaa yeelay khayr iyo fara badan iyo wanaag fara badan oo la aruursanaayo oo dadka khayrkaas sababtiisa ay janno ku helayaan, oo asaga intuu sababtiisa janno ku helo iska daaye uu naar ku galay. soo cabsi weyn maaha? taas ayaa mithaal kugu filan. wa huwa ila al'aan shaarid walaahu wa mucjibun, bal yuraddidu annahu afdalu min gayrihi, fazaadahu ramadaan gafla can gaflatihi wa saara maqruuran bifataatihi. waxaa la yidhahdaa qofka noocaas oo kale ah waxaa la ishaarayaa wa huwa ila al'aan, waxa waaye qof mucjib ah oo iscajib geliyey.
oo waxa waaye wixii uu samaynayey khayrka iyo wanaagga uu samaynayey ayuu iscajab geliyey. waxa waaye marka waxa waaye waxaa u sii ziyaaday waxa waaye bal yuradidu annahu afdalu min gayrihi. waxa waaye dhinac kastaba cabsida waa dhinac kale. qof baa waxaa laga yaabaa inuu ramadaanka iyo khayrkiisii wanaaggiisii oo waxa waaye intuu ka faa'iidaysan waayey oo sidaasi naarta ilaahay uu ku galay waa dhinac kalena qofkii dadaalay oo dadaalkii faraha badan la yimid haddana iscajab geliyey oo isla yaabay oo u arko inuu dadka dhan ugu fadli badan yahay u arko. waxaa u siyaadaya ramadaankii waxay u sii siyaadisay khafla, waa mooganaan oo calaa khaflatihi. marka wasaara wuxuu noqonayaa maqruuran bifataatihi wixii ku kadsoomay. marka facrad nafsaka, adiga naftaada waxaad u bandhigtaa marka waxaan markii laguu sheegaayo naftaada u bandhig calaa zawaajir alqur'aani, qur'aanka canaanta uuna canaananayo. bal adiga naftaada wuxuu qur'aanka naga canaananayo naftaada u bandhig. adiga fiiri qabla fawaati al awaan, intuusan waqti kaa dhammaanin adiga hadda naftaada u bandhigo canaantan qur'aanka canaananayo xaggee ka jirtaa. hal anta daaqin ow gaafilin, dadka laba waaye, laba xunxun baa jirta oo midka dhexana waa midka fiican, mid daaqi ah oo qooqay oo kibray iyo mid gaafil ah halmaansan oo moogan. labadaas keebaa tahay? mise ow wajilin, midda qof cabsanaayo ilaahay ka cabsanaayo. waayahay litanjaxa fi imtixaan, imtixaankaas si ugu guulaysto aakhiro. saddexdood keebaa tahay? adiga waxaa isku barbar dhigtaa nafsadaadii intaysan fursadda ku dhaafin. ma tahay qof daaqi ah oo qooqay oo kibray oo isla weyn oo dadka oo dhan agtiisa ku dhiitaan, mise qof gaafil ah oo moogan oo khayrkii oo dhanba halmaansan, mise qof cabsanaya waxa waaye imtixaanka si ugu guulaysto. maadatu alqur'aan fii ramadaan fa innahaa laa taxtamilu alrusuub. maaddada macnaha lagu saxaayo imtixaanka ramadaanka waxa waaye rusuub ma aqbasho, macnaha qofkaas inuu raasib noqdo ma oggolaanayso. marka qofka waxaa la rabaa waxaa la sheegaayo inuu nafsadiisii u bandhigo. aayadaha marka si aan ula noolaano, ilaahay aayad kalena wuxuu ku yidhi meelo fara badan baan ka fiirinaynaa. ilaahay qur-aankiis wuxuu ku yidhi wa qaaluu in nattabici alhudaa macaka nutakhataf min ardina awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shayin risqan min ladunna walaakina akharahum laa yaclamuun. bal aayaddan hore aan ishor istaagno. wa qaaluu waxay yidhaahdeen nimankii quraysh oo nabi maxamed warkiis inay qaataan diiday yaa waxay yidhahdeen in nattabici alhudaa macaka, haddaan hanuunka iyo waanada adiga aad la timid aan raacno oo adiga aan taageerayaal kuu noqono, waayaha nutakhataf min ardina, dhulka ayaaba lanaga qaadanay dheheen. haddaan xaqa qaadano waxa waaye waa lanagu soo duulayaa, dhulkeena waa lala wareegayaa. ilaahay marka wuxuu yidhi awalam numakkin lahum, dadkaasaan u hadlaaya soo uma aanan u gacan gelinin, soo ma aanan u dhiibin xaraman aaminan, xaram aamina sooma joogaan oo yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shayin, shay kastaba mirihiisa u imaanaysa, risqan arsaaqsiin darteeda ayaga lagu arsaaqsiinaayo. miro kasta oon maka ku bixin beelo kale looga keeno, soo ma arkaan aaminna ay ku nool yihiin, arsaaqdana maka loogu keenaayo. oo nabiyullaahi ibraahim ducadiis ilaahay u aqbalay warsuqhu min athamaraati uu yidhi. marka soo ma arkaan inay degan yihiin awalam numakkin lahum xaraman aaminan oo yujbaa ilayhi loo soo jiido oo loo keeno thamaraata kulli shay kasta mirihii uu dhaliyey, miro kasta ayaa loo keenaya. risqan arsaaqsiin oo min ladunna agtanad ahaatay, annaga ayaa ku arsaaqayna uu yidhi. walaakina akharahum laa yaclamuun, badankooda waxba ma oga, ma garanayaan. suuratu lqasas. marka waxaa la rabaa inaad aayadda hortaada aad dhigato kathiiran yucradu cala aliltizaam makhaafata
مضيقات والتعرض للأذى مع علمه الحق إن فربضنا دتك كمذا آيات هذه سبب النزول كساس أي كسو دكتي وحال هذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أيا لهذا عبرة قادة الشدو وحال عبرة قادنا يا لفظ عام نمديسي قود أهان لكن سببتي كلية ما أفضلنا يسو حدين لمنك رير مكا يرهدين حق هدان رعنو ولا بلنا قبصنا يا ولا نلو ريغا يا إدهان أو لو جوابي إن لم إذا أيا أنك يعني أكتا الله إن فربضا وحواي وحي إسكاجي سنة يعني التزامك دينت إلهي إنay ku toosnaadaan diinta ilaahay inay ku toosnaadaan ba iskaga jeesanaya in fara badan cabsi oo ayagoo ka cabsanaya in cadaadis la saaro mudayiqaat in la cadaadiyo oo la dhibo tacarrud lil adaa dhib iyo xumaan in lagu sameeyo cabsi ay ka cabsanayaan darteeda maca cilmihi alxaq qofka asagoo xaqi yaqaana ayuusan xaqi qabsanayn waxa waaye wuxuu leeyahay haddaad xaqa qabsato oo ku iltizaamto waxa waaye waxa cadaadis ayaa kugu imaanaya caalamka ku cadaadinaya diinta haddaad ku dhaqanto dhiba kaaga imaanaya dhibaato fara badan baa lagu geysan doonaa asagoo xaqi yaqaana waxay alhudaa macaka hanuunka adiga aad wadato haddaan raacno waay wa kathiiran yadunnu wa kaana alardu arduna waxa waaye in fara badan waxay u malaynayaan dhulkooda inuu yahay min ardina nutakhattaf min ardina bay leeyihin macnaha waxa waaye dadka qaar waxay u arkayaan dhul ayaga leeyihiin dhulka ilaahay baa iskale nutakhattaf min ardina ay yidhaahdeen in fara badan waxay u malaynayaan dhulka inay dhulkoodu yahay ardina bay leeyihin fayaأti alqur'aanu bidaliili almalmuus almushaahid qur'aankii ayaa yimid daliil ayuu la imaaday oo la taaban karo oo muuqda oo la arkaya ayuu keenay bianna allaha almu'minu amaanun kullu khaa'ifin ilaahay subxaana wa tacaala daliil ayuu u keenay ilaahay subxaana wa tacaala qofka mu'minka inuu badbaadinayo amaan inuu ku jiraayo oo ilaahay inuu ka ammaan yeelaayo wax walba uu ka baqaayo ilaahay wuxuu yidhi alam tarow sow ma arkaan aayadda macnaheeda waxa waaye awalam yarow maxaanku xaraman aaminan awalam numakkin lahum sow ma aanaan u makinin u gacan gelinin xaraman aaminan xaram aamina sow ma arkaan waayahay fakun calaa yaqiinin bianna allaha waxdahu waxaa noqotaa yaqiin qof ku socda in ilaahay subxaana wa tacaala keligiisi alladii yu'minu ricaayatuhu walaa nakhsha min dawi lcarshi iqlaala marka waxaa la rabaa fakun calaa yaqiinin adiga dhab u rumey yaqiin ha ka ahaato ilaahay in uu ku badbaadinayo yaqiin u rumayso maxaa yeele ilaahay keligiisa waxa alladii yu'minu ricaayatahu maxaan ku rahda ricaayadiisii waayahay rawcaatika ilaahay baa badbaadinaya cabsida ilaahay asagaa kaa bixinaya walaa takhsha min dilcarshi iqlaala marna ha ka baqin allihii carshiga u saaxiibka ah inay wax ku yaraadaan marna ha ka baqin markaasaa waxaa yujbaa ilaahay wuxuu leeyahy yujbaa ilayhi waxaa loo soo jiidayaa loo keenayaa thamaraatu kulli shayin shay kasta mirihiisii risqan min ladunna arsaaqsiin oo agtanada ahaatay fa cilaajunaa fii yaqiinin fa cilaajuna waxa waaye daawadeeni waxay ku dhex jirtaa fii yaqiinin yaqiinta annaga aan rumaysannahay yaqiinta inay ku dhex jirtaa saan u yaqiinsannahay birisqi dulquwati almatiin waxa waaye daawadaana si dhaba inaan u rumaysano arsaaqda waxay gacantiisa ku jirtaa dulquwati almatiin allihii xoogga badnaa oo waxa waaye maxaan ku rahdaa awoodda badnaa alquwatu almatiin awoodda matiinka lahaa ayaa maxaan ku rahdaa inay arsaaqda gacantiisa ku jirto awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shayin risqan min ladunna laakiin dadka intooda badan ma ogaa lidhi aayad kale markii aan fiirino si aayadaha ilaahay qur'aankiisa nolosheena aan ugu dabaqno wa idaa maa unzilat suuratun suurad haddii la soo dejiyo
fa minhum dadkii waxaa ka mid noqon doona man yaquulu qof dhahaya ayukum kiineeba zaadathu ay u siyaadisay haadihi tani iimaanan. markii suurad aan soo dejino oo dadka mu'miniinta iimaanka ku siyaadsan lahaayeen ayaa kuwo ayaga ka mid a mu'miniinta la jooga waxay leeyihiin qof idinka mid a farta taagaya ma jira oo aayaddaani iimaan bay i siyaadsan dhahaya. ilaahay buu yidhi fa ama aladiina aamanuu kuwii ilaahay nabigii surmeeyey mu'miniinta ah fazaadathum iimaanan, fazaadathum aayadda iyo suuradaha waxay u siyaadisay iimaanan wahum yastabshiruun ayagoo bishaaraysanaya. dhinaca kalena wa ama aladiina fii quluubihim maradun kuwa quluubtooda maradka ku jira oo buka qofku kuwa qalbiga ka buka quluubtooda kuwa ay bugto fazaadathum waxay u siyaadinaysaa aayadda rijsan qurun ilaa rijsihim qurunkooda loo geeyey. wa maatuu way dhinteen wahum kaafiruun ayagoo gaalo ay dhinteen, waabay dhinteenba. wa maatuu wahum kaafiruun way dhinteen ayagoo gaalo ah. macnaha waxaa laga wadaa ay musiibatun acdamu min dalika, ayu musiibatin acdamu min dalika, gaalnimo inay ku dhintaan masiibada ka weyn waxay tahay. waayo walaaxid ana alkalaama can asxaabi alquluubi almariida wa inana laa yashku min dalika. waxaa la yidhahdaa hadalka, waxaa la yidhahdaa wuxuu u jeedaa walaaxid, adi mulaaxado ku sameey oo gudaha u galo si fiican u fiiri. ana alkalaama hadalka can asxaabi alquluubi almariida, hadalka loo jeedinaayo ama ay ku hadlaayaan dadka quluubtooda jira waa yahay laa yashkuu min dalika wa ayaanan laa yashkuu min dalik. alqur'aanu silaaxu duu xaddayni. marka qur'aanka ilaahay uu noo soo dejiyey inaan nolosheeni inaan la noolaano la rabo, waxaa la yidhaha qur'aanku waa hub oo laba afla waay, hub laba afla waay. famaada zaraca alqur'aanu fii quluubikum calaa madaa ramadaan faxdir dunuubaka an natmisa calaa qalbika arraanu fazidnaan rijsan wa tilka cuqba suuء alkhawaatima wa calayka bitadaruji lifatxi alaqfaali waayahay fallatu fitaaxi alcaliim kay yaftaxu laka almagaaliiq wajadid towbataka. qur'aanka waxaan soo sheegnay silaaxu dulxaddayn waay, waa hub laba afla waay. waxa waaye famaa zaraca alqur'aanu fii quluubikum, wixii muxuu quluubtiina maxaa waaye qur'aanka quluubtiina muxuu ku tallaalay oo ku abuuray calaa mada ramadaan laga soo bilaabo. waayahay faxdir dunuubaka, marka adiga dunuubtaadii ka digtoonow. an tadmisa calaa qalbika arraan, dunuubta iska ilaali inuu quluubtaadii uu daboolo raan inuu saaro. waayahay fayasdaadu rijsu, marka raankii iyo daboolkii qalbigaaga fuulay waxaa u sii ziyaadaya, fayasdaadu waxaa u sii ziyaadaya arrijsu qurunkii yaa calaa qalbigaaga ku ziyaadaya arrijis. wa tilka taas marka rijsigaasi cuqbaa suu'u lkhawaatim, waxa waaye khaatimo xumada, waxa waaye xumaanteedu waaye. wa calayka bitadabbur, waxaa lagaa rabaa qur'aanka ku tadabbur oo macaanidiisu dhuux, si uu lifatxi alaqfaali, si uu qufullada kugu xirxiran uu kaaga furfuro. waayahay lifatxi alaqfaal, waayahay faludbi alfataaxi alcaliim, waxaad magan gashaa ilaahigii alfataax ahaa, ilaahigii alcaliim ahaa magan gal. kay yaftaxu laka suu ilaahay kaaga furfuro almagaaliiqa qufullada, wajadidi towbataka, towbada aad toobad keenaysana mar walbaba cusboonaysii si aad uga faa'iidaysato. taasna waa mid. waayahay taasna waa mid. ilaahay aayadihiisii waxaa ka mid ah oo mar walba aan isdul taagayno, marba dhinacyo aan ka fiirinayno. ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi haddana waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waaclamuu ana allaha shadiidu alciqaab wadkuruu
نعمة الله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. آيادان أن إسدول تاغنو إلهي قرآن كسوح كوير واتقوا إسكجرة أو كدكتونادا فتنة فتنة إسك إلالية فتنة لا تصيبن عن كل عين الذين ظلموا كوي الظلم السمايي فتنة سببته أها عن كل عين منكم إذنكم إذا خاصة سيجارهان فتنة أو ددك حمانة فتنة سببته أها أو حواي أيسان كل عين كل بل إسك إلالية واعلموا أغادا أن الله شديد العقاب إلهي عقابك سوى الدريهي وهو تاسوا مدكلا واذكروا حسوستا إذ كنتم قليل مركي آد يريدان مستضعفون لو تنجرع سدو أو لو تنتو لقميستو في الأرض الأولى كالحديثة تخافون وآد كبقيسان أن يتخطفكم الناس دادك أودن إن عالم كودن إذن كانت دفدفو آد كبقيسان أو فآواكم إلهي إذن ضمي أو وأيدكم إلهي إذن كحجي بنصره نصره ورزقكم وإلهي إذن كأرزقي من الطيبات وحيابها ومناسم لعلكم تشكرون إن إلهي كشكرا درت إلهي إذن كل سورة الأنفال مركب بالفيري محنكر هذا وحيابها كفران العظيم وهي النذير البلية فلندبر الفتنة جاء قبل المنة من ساعة المنة لاحظ أن فتنة العمياء ستصيب الظالم والعادل وستتعمم الجميع وهي وحيابها أقوين محاكمة وحواي إن قف كستبع إنه فيريو أو لوغو ديكتونادو فتنة وحواي مركي تمادو وحواي لاحظ مركا فيرسو فتنة وإن لا دهي marka fidnada qofkii sameeyay sababtii ay ku timid haddii aan qofkaasi laga hortagin oo laga celinin fidnada markay timaado waa in dhaladahay fitnatul umya waxay ku dhacaysaa fidnada maadaama in dhalaan tahay waxay kala maxaan ku raad ay kala soocaysa aan lahayn adh-dhalimu qofkii dhaalimka ahaa oo fitnadan sababta u ahaa iyo wal caadilu qofkii dhulmiga aan sameynaynin oo caadilka ahaa oo wada taabanayso waayahay wasata'ummu al-jami' dadka oo dhan bay wada gaari doontaa fitnadaas hal iska ilaaliyo وهي وأن البلاء بالنعم خطير عاقبته حال الكفران شدة العقاب والله صدق الله ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وحواي بلايده وحواي وأن البلاء بالنعم نعمة إن لغو امتحامه وحواي خطير وخطر إن بلايا لغو امتحامه أما النعمة إن لغو امتحامه النعمة يا كخطر سن عاقبته عربتيسي خطر واي خطير عاقبة عربتيسي وخطر حال الكفران markii ay gaalnimada xaaladaasi waxa waaye oo lagu gaaloobo oo lagu abaal darsado al-iqaabu iqaab shadiid al-iqaab ilaahi iqaabkiisa uu dareeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri wala in kafartum hadii aad ku abaal darsataan nicmada ilaahi in siiyay jidkii loogu talagalay jid aan ahayn aad marisaan inna cadaabi la shadiid cadaabkayga waa dareeyahay alaysa min al-balyati annaka إلى الآن تمادي في هذا ولن تحقق الشرط صومعها امتحانك إيه بلايدي أذيك إلى الهدى أو أدوليك كما دح أذيغيسو أو هدى آيدي كلها ضايان أو أدكما دح أذيغيسو وحواي الشرط دي مو هذا كسوا بحين شرط دي بلايدا كقول عليه صومعها محنكر هذا صومعها حقيقا إلهي وحي ثم لا يتوبون ولي حمانتي كجران متوبت كينايان ولا هم يذكرون من وان سمايان مركا وحواي امتحانكين وكجرتا وحواي منا حمانتي ولي كسي ادكيسانيسا منا كتوبت كينيسيت منا حسوسانيت دبعتنا سا ugu bixleed marka فاللهم
أبوء بنعمتك التي كانت والتي لم تنزل وأبوء بذنبي فاغفر لي فاللهم يا اللهم الله يو أبوء وحن قرايا بنعمتك نعمة قرايا التي كانت نعمدي أي إجرتي أيام قلاه قرايا إيا والتي لم تنزل إيا مدى أن ولي إيسو دين وأبوء إلع كان وحن قرنايا ذنبي إيان قرنايا فاغفر لي إله إيداف مركا وحن ربا آيات مركا كلها ديسو أذيك كلها ديسا وحواي صوابتي كسو دكتي إيا محان كلها دا حمانت عدي سميسي كليو كما كان يسي آيات دا أذيك نوي كلها ديسا إلهي قرآن كسوحة كلو يلي آيات كلا أنسدول تاغينو وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلهي سبحانه وتعالى وحي ميقان هلاقني ومضو وحواي قرون قرنيال يان هلاقني ميقان قرنيال أون هلاقني انتي أن هلاقني بإلهي سؤال نويدينا ياي هل تحس منهم من أحد قف أي كمذا ما دريميسا إنو نفكو جرتو أو تسمع لهم ركزا وحشا قرأ مية كما قليسا بارك وحوى كأن السياق معناه سيدة آيات أسعة واحد مدائن لنوك حينايو هل ترى أو تبصر ما أردتا ما في رسي منهم من أحد قف لكن جاء القرآن بالتعبير معناه وحوى وحل هذا هل ترى ما أردتي لغمد هاي أو تبصر منهم قف ما كأركتا أو نول من أحد لكن قرآنك وحو لي من أسلوب كلا تعبير أري معناه وحا لغو عبرايا بالحس درين هل محنكو درين كاغي وحمكو أركتا دادكاسي ما درين سنتهاي معناه نولول ما كدرين يساواي معناه إني جوغان للدلالة على أن الصالحين وحواي الدلالة أما وحيابها أي كتوسي صدتك الصالحين تا يحسون وحوي دريمايان دتك ويستشعرون الناس دتك ويدريمايان وقلوبهم أجهزة قلوب توضوحها كركبا أجهزة قلب أيا كركبا دتك الصالحين تا وحواي حس قوضي وحكو قرنايان وحي دريمايان دتك ويؤغانايان قلوب توضوحها كركبا أجهزة استشعار وحواي قلب أو وحلقو دريما أيا كركبا فهل تشعر بمن حولك ما دريميسا وحا أديك أغاقاركا لتضم ركاب المتقين سي محانا أغمد دكتو دادك متقين تسي أغمد نقطو معنا مجرى ما دريميسا وحا أغاقاركا تاسا اللوضة مركز استمع إلهي لبريو آياتها أنك إن الله لا إن لغو رقمه اللهم أغث أهلنا في عزة وهي محنكر هذا إلهي يو بادي ميل كستو ضدك مسلمين تلغو دبايو أو دباتها يكون ستوسيد غزة أو كلا شام أو كلا وفك أسرى كل منصور المظلوم ما سور المظلوم وفرج إله قف كستو للظلمنا إله حمان تكقعد وفرج كرب المكروبين ومن المؤمنين دتك المؤمنين توحي لقربين عينا إله كربدا كقعد إن ترادو إلهي أبرسه وحواي مرول بابا وحال سويدين يا صبرا دلقاد وهي صبرا مركا شن مراتب وحاجرت شن مرات في قصة واحد وحواي عدد معنى وحاجرت شن مر وإلهي سبحانه وتعالى وكسو قاتي قصة هل كلية dhowr macnana uu ku soo qaatay oo waxa waaye qisadaasi waxay tahay waxa waaye sayidina Muusa nabiyullaahi Muusa calayhi assalaam iyo sayidina Khadar waxa waaye qisadoodii waaye qisadii ayaa 5 mar ayaa waxa laga soo qaatay hal qiso kaliya waaye hal qiso kaliya oo dhex martay nabiyullaahi Muusa calayhi assalaam iyo maxaan ku raahdaa iyo Khadar sayidina Khadar dhowr qisadaasi ayaa waxay xambaarsan tahay dhowr macno oo mar waxa leeyahay innaka lan tastatiica ma'iya sabran alam aqul laka lan tastatiica ma'iya sabran alam aqul laka innaka lan tastatiica ma'iya sabran
هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وما فعلت عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. آيدهاسي معناها halkaa qiso ayaa 5 jeer oo macnahooda uu kala duwan yahay ayay ku soo aroortay. marka qisadaas oo nabiyullaahi muusa iyo khadar iyo faa'iidada aan ka qaadanaynana si aan qur'aanka una noolaanana casharada kuwan ku xiga ayaan ku sharaxaynaa. qaybtan halkan ayaan ku joojinaynaa. ilaahay hana wa anfaco. hada wabillaahi tawfiiq wallaahu calaa maa aquulu wakiil. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.